ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu galay howlgal ballaaran howlgalka ballaaran iyadoo halkan aanu ka diray ciidan xoojin oo kale horena ciidan u jooga goobta iyo ciidanka gobolku waxa dhacday in xog dhab aanu helay raggii xalay soo weeraray guriga ee ciidanka laayay goobay ku sugan yihiin ciidanka booliisku iyagoo fulinaya sharciga isla markaana nabadgelyada ay uga mas'uuliyeen qaranka Soomaaliya iyo bulshada reer Soomaaliland waxay ugu tageen goobtii ay nimankaas ku sugnaayeen xogta ku heleen waxaana dhex maray dagaalka kadib waxay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen 5 xubnood oo mid ka mid ah dhaawac yahay laguna qabtay qori M16 iyo 13 xabo rasaas ah isagoo dagaalamayo ku riday ciidanka gacanta oo dagaalka ku jira isla markaana wuxuu qiraal ku bixiyay inuu ka mid yahay raggii weerarka geystay marka hore ilaahay baa mahadle waana guul qaranka Soomaaliland soo hoytay waxaan warbixintan idin siinayaa horudhac xalay markii operation-kaasi dhacay kadib dad baa la soo qabtay tiradoodu 26 qof kuwaas oo qaarkood lagu eedeynayo inay arrimahan ku lahaayeen ama ay abaabulayeen waxaan lagu kala saari doonaa haddii la yiraahdo baarista intaas ayaan caawaydu ku yeedhay